runtii waxaan wanaagsan daawadayaal soo dhawaada Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame mar kale ayuu afka furtay dowladda federaalka Soomaaliya ayuuna ku eedeeyay siyaasadeeda inay tahay mayd ganacsi ah oo looga ganacsanayo guud ahaanba dhulka danta guud iyadoo madaxda dowladda uu sheegay in dalka dibaddiisa ay ka dhisteen guryo casri ah dalalkaas oo ay ka mid tahay South Sudan, Kenya iyo kuwo kale oo sheegay dhaqaalihii dalka hadda in lagu sii wado maadaama dowladdu ay taajir ka noqotay amaba dhaqaalihii ugu badnaa ay ka sameysay dhulka danta guud ee la burburiyo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo Xasan Sheekh Maxamuud toos u weeraray ayaan idinla wadaagaynaa saaxiibayaal iyo sire qarsoon oo ninkan bannaanka keenay. Dowladda federaalka Soomaaliya kama aysan jawaabin wararkan balse waa warar la baahiyay baraha bulshadana si aad u qabsaday. Soo dhawaada aynu ku bilownay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo shir jaraa'id qabtay isla markaana looga bartay weerarka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markan waxa uu ka hadlay arrin la yaab leh oo bannaanka keenay. ninkan waxaa lagu yaqaanaa mucaaradida dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ka tirsan yahay xildhibaanada baarlamaanka waxa uuna gudoomiye ka yahay xisbiga wadajir oo ka mid ah xisbiyada iyagu u sharaxan xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya 2026. ninkaas siro badan ayuu bannaanka keenay isagoo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya fadeexeeyay kuwaasi oo uu sheegay in guryo ay ka dhisteen dalka dibaddiisa waa dalalka Kenya, Ethiopia, South Sudan, Uganda iyo kuwo kale ayuu sheegay in saamigii Soomaalidu maanta lagu daadguraynayo. waxa uu yiri in ka badan 400 milyan oo dollar lacag ka badan ayaa magaalada Muqdisho dadkeeda laga qaadaa haddii dhulka laga qaado iyo haddii meel kale laga keenaba. lacagahan ugu badan waxaa qaada siyaasiyiin u dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuwaasi oo dalka dibaddiisa guryo kala duwan ka dhisanaya xilligan gaar ahaan dalalka Afrikaanka oo ay ugu horeyso waddanka Uganda, South Sudan iyo waddanka Kenya iyo Ethiopia iyo kuwo kale ayuu sheegay in guryaha ugu badan hadda Soomaaliya ay ka dhisanayso oo dowladda Soomaaliya dhaqaalaheedii ayuu sheegay inay ku socdaan dalka dibaddiisa oo aanan waxba laga faa'iideynin xilligan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur qaybta hore waxa uu ku soo qoray qoraalkan dowladdii haddii shirkad laga dhigo siyaasaddu waxa ay noqonaysaa ganacsi dadkuna waxa ay noqonayaan saami la kala iibsado ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo quus ka muujiyay habka dowladda federaalka Soomaaliya ay u wajahayso hadda dhulalkii danta guud iyo sidoo kale dadka masaakiinta ah ee lagu dulmiyay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. ninkan waxa uu si cad u sheegay in dowladda Xasan Sheekh Maxamuud hadda ku takrifalkii ugu weynaa ay ku haysa shacabka Soomaaliyeed iyadoo malaayiin dollar oo laga qaaday shacabka lagu qurxinayo wadamo caalamka ah gaar ahaan wadamada Afrika ee ka mid ah dowladaha soo koraya si siyaasiyiintan haddii hadhow xilka Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo laabo waayo isla xisaabtanna uu soo wajaho ay ugu guuraan guryaha halkaasi ay ku dhisanayaan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu sheegay in marnaba aan la aqbalaynin ku takrifalka dowladda ay wado. dhowr jeer ayuu sheegay in arrintan ay ka hadleen iyagoo sheegay in marnaba aanay suuragal noqonaynin in dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay ku xadgudubto guud ahaanba hab systemka dhaqaalaha danta guud iyo sidoo kale xarumaha dowladda ay leedahay kuwaas oo aan procedure sharci ah aan loo marin oo dowladdu markasta ay iska iibsato iyadoo aan kala tashanin saamileedii siyaasadeed doorkii shacabka Soomaaliyeed uga aadanaa iyadoo hooyo Soomaaliyeed ay ku oynayso Muqdisho ay leedahay guri ayaa layga bixiyay guri aniga aan lahaa sabarloogadiisa aan lahaa ayaa layga guuriyay dhulkii danta guud ee dowladdeeda ay lahayd ayaa layga barakiciyay maanan helin goob kale oo dowladdu ay siisay si aan ugu noolaado maadaama dowladda iyadu ay mas'uuliga ahayd. haddana waxaa nasiib darro ah buu yiri mas'uuliyiintii ugu sarreysay dowladda in xilligan dhaqaalihii dadka sidaas u oynaya laga qaaday ama dhulkooda ha lagu iibiyo ama cashuur ha looga qaado ama si kale ha looga qaado ee dalka dibaddiisa ay siyaasiyiin iyo sidoo kale xubno dowladda federaalka ka tirsan oo Xasan saaxiib la ah inay guryo ka dhistaan magaalooyinka Kampala, Kenya, South Sudan, waddanka Ethiopia iyo kuwo kale oo iyagu ay doonayaan haddii burbur uu ka dhaca dalkan iyo sidoo kale habsami u socodka haddii uu soo noqonayo Xasan Sheekh Maxamuud inay halkaas ku noolaadaan. haddaba ninkan sirahan oo bannaanka keenay maalmahanba guuxa dadweynaha waa ay dhex yaaleen in siyaasiyiin qaar iyagu siyaabo shakhsiyad ah ay u adeegsadaan
iyagoo isticmaalaya shaarka dowladda in shacabka lagu dulmiyo dhulkoodiina la qaato. khudbadda cabdiraxmaan cabdishakuur oo aada u dheereed ayaan qayb ka mid ah idinla wadaagayaa, qaybaha dambena laba qodob oo muhiim ah ayaan ka falanqayn doonaa, balse ila daawo khudbadda cabdiraxmaan cabdishakuur warsame. waxaa dadka cusleeyo kale canshuur xad dhaaf ah. dowladda sanadkii la soo dhaaf 480 milyan ayay ka qaaday canshuurta gudaha. canshuurtu waa wax sax ah, muwaadinka waa inuu canshuur bixiyaa. dhammaanteen canshuur ayaa nala ka qaadaa, laakiin canshuurtu maxaa u bixinaysaa? waa in adeeg lagu siiyo. 480 milyan oo u dhiganta 45 bajetka dowladda ayaa la aruuriyey, laakiin ma loogu adeegaa dadka? ganacsiga markuu dekeda ka yimaado, hadduu jumlo la iibinayo, haddii tafaariiq la iibinayo, mishaarkaaga, canshuurta jidka oo gaariga iyo bajaajta, guryaha, kulli waxaa laga qaadaa canshuur. laakiin dadka ma loogu adeegaa? haddii loogu adeego, hooyo Soomaaliyeed isbitaal hortiisa kuma umusheen, mid kalena lama barakiciyeen oo magaalada banaankeeda ma aadeen haddii dadka wax loogu qabanayo. dadka inta la qasbo la yiraahdo xabsiyada lagu xiro inta loo gaxaafadiina dhisa oo lacagtiina haddaad bixi weysaan waa la inxirayaa lama dhaheen. tima jaraha ama cooshada inta loogu galo canshuur bixi hay-adaha nabadgelyada ma ay dhaheen haddii dadka wax loo qabanayo. taas waxay sababtay marka in dadkii canshuur xooga laga qaado, la qasbo, la kor taagan yahay. lacagtaas canshuurta looga qaadanay dabaqada siyaasadeed ay kala goostaan oo ayaga yihiin wax ku tamashlaynaya, ku raaxaysanaya, ayaga isticmaalaya, iyo dadka ayaga faamiladooda ama qaraabadooda ama ehladooda ah oo dadkii masaakiinta ahay aysan ku soo noqonaynin. waxaa intaas dheer in adeegii kale dowladda laga wada dhigay shirkado gaar ah. shirkado qoys leeyihiin ama qaraabo leeyihiin ama ay leeyihiin dad saaxiibayaal ah. haddaad rabto CID inaad warqad ka qaadato, ama mid dhalasho aad qaadato, ama baasaboor aad qaadato, ama aad kaar kala qaadato, ama aad service kasta oo dowladda leeyahay, ama aad dekeda alaab kala soo degayso wax quality control loo bixiyo meel kuu fadhiyaan, ama shati aad qaadanayso, wax kasta oo adeeg ah lacagaa laga dhigay. lacagaas waxaana haysta waa la commercialize gareeyay servicekii dowladda, adeegii dowladda ayaa la ganacsiyeeyay. shirkadaha wada haysta intiisa badan shirkado dad qaraabaa ama saaxiiba ama ehla ayaa lagu naasnuujiyey. marka dowladdii dhammeed waxay noqotay shirkad, siyaasaddii waxay noqotay ganacsi, dalkii wuxuu noqday suuq, dadkiina saami la kala iibsanayo ayay u ekaadeen. waa arrin aad iyo aad looga noxo in waxa dhan oo la isku haysta oo dowladnimadii la sugayay inay ummadda faqriga ka saarto, cadaalad u keento, sinaan u keento, amni u keento, horumar u keento, diintooda iyo isirkooda iyo qiyamkooda iyo dhulkooda u ilaaliso, waxay isku bedeshay dowlad ganacsi oo la isku naasnuujiyo iyo shirkado ku abaabulan lacagta danyarta ah inay dhacaan. waayaan daraka weyn. waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka doorashada, gaar ahaan midda ka socota gobolka Banaadir haddeertaan oo waa la bilaabaa la leeyahay. sidaa la socotaan, doorasho hal dhinac ayaa socota oo sharcigeeda, guddigeeda, farsamadeeda, qalabka lagu shaqaynayo, kormeerkeeda hal xisbi iyo hal nin oo xisbigaas madax u ah ay leeyihiin. ayagaa isku haysta, ayagii yaa kala tabanaya, qof kula jirta ma leh. doorasho waa in intaa sheegay heshiis laga yahay, sharcigeeda, siyaasadeeda, guddiga qabanaya, qalabka lagu qabanayo, kormeerkeeda, waxaasoo dhan in heshiis laga yahay ayay u baahantay. hadday maanta marka halkii xisbi ee waxa qabsanayay cadaalad darka dhex samaysay, maxaad u malaynaysaa bulshooyinka Soomaaliyeed inay cadaalad helayaan? ha ka yaabin. waxay u socotaa colaaday u socotaa. taas waxaa ka daran bulshada sida aragtay loo soo dhawaateeyay oo 230 kun oo qoys oo kamid ah la barakiciyay. canshuurta inta laga qaato lagu tamashlo ayaga lagu celinaynin. hooyada ee banaanka ku umulayso, midna habeenkii u baryayso kaar aqoonsiyo lagu qasbay inay qaadato. waxa ka dhacaya garoomada diyaaradaha ogtihiin oo jidkan sahal hadaa mar maagto isbaare ay ku taalo.
oo haddaa rabto inaad ka soo dhoofto magaalada banaankeeda airportka dhoof amaagto 12 isbaar amaraysid dadka saas u cadiban oo wiilka bajaajta wadka ee jaamiciga ah ee bajaajtiisa uu la baxsan yahay ee hooyada saan sheegnay ee banaanka u maleys aabaha hadoo garsoorka aada cadaalad usoo kasoo helaynin ayaa waxa la leeyahay waxaan u qabanaynaa doorasho qof iyo cod ah nimankii bray hantidii dawladda ka dhargay ayaga asxaabtooda ay ka dhargeen ayaa habeen kasta intay dad masaakiin soo aruuriyaan hooyooyinka masaakiinta inta la soo aruuriyo kaarar beena loo qaybiyo aa lagu korta mashleeya waxaa la yiraahdaa doorasho qof iyo cod ah ayaa la qabanayaa rasuulkeena wuxuu alayhi salaatu wasalaam idaa lam tastahi fasna maashit hadii aadan xishoonaynin oo wax qiimo ku celiyo lahayn oo iska baashaalaysid nin xarunta uu degan yahay $15,000 ugu ijaaran tahay oo jaabka dawladda laga bixiyo oo lacagta asaga soo rabo ugu tamaashaado oo wax la xisaabtamayo jirin oo qandaraaska yimaadaba qaadanaya oo hantidii dawladda qaadanaya ayaa wuxuu ku leeyahay doorasho qof iyo cod ah ayaan qabanaya waayahay waxaan filayaa inaad ila daawatay khudbadda cabdiraxmaan cabdishakuur oo arrintan kaga hadlayo waxa uu afkiisa ka sheegayaa in siyaasaddii ay noqotay ganacsi wax lagu kala iibsado hadalkan marka uu yiri dawladdii haddii ay shirkad laga dhigo siyaasaddu waxay noqonaysaa ganacsi dadkuna waxay noqonayaan saami la kala iibsado ayaan rabaa in laba qodob aan ka falanqeeyo shacabku saami la kala iibsado waxay ku noqonayaan haddii dawladdii iyadu damaanad qaaday dhulkoodii inta ay ka qaaday qaar dukumentiyo sharci ah haysto dad kale oo jeebuur ah loo adeegsaday dhaqaalihii ugu badnaana laga dul samaynayo dadkiina bannaanka loo tuurayo maadaama dhulkooda ay iyagu lahaayeen sidaas ayay ku noqonayaan wixii ganacsigii amaba saamigii ganacsi ee la kala iibsanayay siyaasaddu haddii ay noqotay ganacsi siyaasaddu haddii ay noqotay dowladda xasan sheekh maxamuud waxa ay adeegsatay shirkado kala duwan kuwaasi oo dalka dibaddiisa laga leeyahay dhaqaalo badan oo malaayiin dollar ahna ku bixiyo sidii loo barakici lahaa bulshada Soomaaliyeed haddii marka siyaasaddu ay noqotay mid lagu kala ganacsado wax suuqa yaala tusaale ahaan qof lacag haysta oo qof kale wax ka iibsanayo haddii uu kusoo koobay waa arkaysaa xubnihii mucaaradka ahaa ee dowladda kasoo horjeeday maanta qaarkood dhaqaalihii ugu badnaa ayay qaateen oo dulmiga dowladda ay sameynayso ay ka aamuseen shirkadaha amaba kambaniyada laga leeyahay dalka dibaddiisa Soomaaliya ayay inta yimaadaan oo ay ka sameystaan dhulalka ugu casrisan iyagoo dhaqaalihii ugu badnaa bixinayo qofka marka warar la soo xigtay waxaa la leeyahay dhulka adiga ku anfaco soo fiirso dhul dad shacab ay degan yihiin ayuu arkayaa in dhul istiraatiiji ah uu yahay dowladdii ma eegaysa shacabkii oo waxa ay ku tilmaantay saamigii oo waxa ay eegaysaa dhaqaalaha halkaas ka soo galo sidaas ayayna noqonaysaa oo dhaqaalo badan dowladdiina ay ku hesho shirkadiina dadka looga barakiciyo iyadoo la jirdilayo la dhibaateynayo xadgudubna loogu geysanayo haddaba siyaasadda marka dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayada kaligeed ayaa isku soo koobtay oo waxay isticmaalaan baa la yiri waxyaabo ay ka mid yihiin looma joojinayo iyadoo saamileedii siyaasadeed maanta ay qeylinayaan shacabkii Soomaaliyeed cabasho ay dirayaan mar walibana dowladdii federaalka baaq loo dirayo la leeyahay walaalayaal dhibaatana haysato shacabkii Soomaaliyeed waa kuwaas qaarkood ooynaya dhulkoodii la qaadanaya dadkii waa la jirdilaya haddana dowladdii xasan sheekh maxamuud inay ka aamustay oo ay dhagaha ka fureysatay ayay sameysay tani marka waxa ay wadada u sii xaareysaa in siyaasadii dowladda ganacsi ay ka dhigtay oo iyadu ay isku soo koobtay in iyadu ay ka bilaabato kuna dhamaato marka wax waliba oo siyaasadda xasan sheekh hadda quseeyo waa un lacag moogi istiraatiijiyad kale iyo mid kale oo dadka lagu qanciyo ma jirto ayuu kala jeeday cabdiraxmaan cabdishakuur warsame qoraaladan uu soo qoray isaga oo dhaliilayay dowladda dhexe ee federaalka dhowr jeer ayuu ninkan dowladda federaalka weerar ku qaaday isagoo mowqifkiisa uu yahay midka ugu adag markii la joogo xubnaha mucaaradka sidaas ay tahay waxa uu yahay musharax madaxweyne waxa uu doonayaa sanadka 2026 inuu u tartamo xilka madaxtinimo ee dalka daawadayaal haddii dowladda federaalka Soomaaliya ay ka falceliso hadalka fadeexada leh ee uu banaanka keenay ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame wararkeena iyo warbixinadeena ayaan iyaduna idinkula wadaagi doonaa mahadsanidin